dad maqli jirtay waa loo fadwooday xasan isaga isu fadwooday guri iyo geed iyo bogcad iga badbaadaysaana ma jirta buu yiri Muqdisho dadka fakhrigaana meel walba waa ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ee dhulkooda dhacaya fakhrigooda ha ku noolaadeen buu leeyahay ديغو الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعلى وناكسن نبا لغا هيا الدنيا لي جوغو maxaa aragti ku laaban ninkii xasan ahaa wuxuu ka kacay masaajidkii ama locaalkii madaxtooyada ku yilay maanta oo jimco ahayd wuxuu yiri niyow dadka Soomaaliyeed waxay la mid yihiin dadka caalamka jooga caalamkana dad gaajaysan baa jooga waxa weeye gaajayna ku nool yihiin dadka dhulka iskale ee bogcadaha leh ee aanu carabka iyo gacanta waxa weeye aan mariyay cidii ka hadasha waa cid khaldan buu yiri Muqdishona oo basiiba si ahaan mayse waxaan ka furayaa buu yiri dhul dabaqyo carwooyin ganacsatada dhulka laga iibinaya cidii haysata waxa weeye waraaqihii siyaad bare iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxay ka dhigan tahay cid haysata Cabdalla Shideeye macna maqlid hebel waa loo fadwooday maqlid xasan isaga isu fadwoonaya isaga sheekh isu ah isaga caalim isu ah saajidka isaga imaamka baladeegay khudbadii jimcaha wuxuu ku soo qaatay oo maanta ku banaystay waxaan maqlid uu banaystay yaa u bixi kara wuxuu ku banaystay dhulka dadku leeyahay waxa weeye uu qaato fadwadaas maanta ka soo jeediyay locaalkii madaxtooyada qodobkeena labaad waxa isku dul taageynaa xasan wuxuu yiri wax allaale iyo wax qori la yiraahdo oo waxa weeye aan arki karaa haba yaraatay ma jirto qoryaha inaga xareeya markeeni waaye unukile waaye farmaajo meeshan ma joogo mareexaan ma joogo ariya nin kale ma joogo inagi waaye qoryaha aan xareyno ee waxa weeye igu daba fayla boqortooyo waaye boqortooyada aan dhisayo yaan laga hor imane waxa weeye qoryaha inaga xareeya sidii shalay buu yiri ay Muqdisho ahayd maanta yaanay noqonin shalay maxay ahayd Muqdisho waa markuu lahaa iyaarkaygiyo dhiiqaal waa kula jirta nimaa ka soo baxay shalay nimaa ka soo baxay adna ka soo baxay dhiiqaal waa kula jirta iyaarkaygiyo markii uu lahaa weeye oo laamahan mahi waay mahaygu waay ariya farmaajo soo bax wuxuu yiri sidii shalay maaha xaaladu shaydaanka la iska naro hal istajiyo waxa weeye isaga isu fadwoonaya waa mucjiso ma maqli jirtay mucjiso waxaan arki jiray niman madax sheegto oo niman sixiroolayaal iyo faalalow iyo nin wadaad sheegto oo kutubo xooro iimaan laawa ay u fadwoodaan xasan munaafiq xitaa kitaabkiisa isaga isu fadwoonayo barnaamijka duu soo gaar si share galadi salaad ku joogto soo tukaadi kara nabi ku salli allahumma salli ala sayyidina maxamed qodobkeena saddexaad waxaan isku dul taageynaa qoliyihii sheeganayay mucaaradka mucaaradka macnaha mucaarad qoliyihii mucaaradka sheeganayay oo iyaguna is urursaday oo ku dhawaaqay golaha badbaadinta ummadda iyo dalka iyo dadka iyo diinta Soomaaliyeed badbaadinaya yaa laga badbaadinaya xasan baanu ka badbaadinaa yaa weeye kooxdaas Axmed Madooba Madaniba ma Abdulrahmaan Abshakuurba Xasan Ali Khayra Sheekh Shariifa oo ma dalik isku soo wada duub kooxdii waxay la baxday golaha badbaadinta nabadaynta ilaalinta ummadda Soomaaliyeed diintooda dhaqankooda dalkooda iyo dadkaba ilaalinaysa nima laga haya warsho sagaaro iyo barato warsho sagaaro ima barata buu yiri ee intaan qoliyaha mucaaradka u galin oo aan si fiican isu dul taagin xasan oo isu fadwooday oo khudbadii jimcaha maanta waxa weeye soo saaray digreeta ah in dhulku xalaal yahay waxa laali wixii waraaqa oo siyaad bare iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ahaana inay la mid yihiin Cabdalla Shideeye meeshii gacantu kaga dhacdana xasan aan laga daba hadli karin laakiin wuxuu tagay Muqdisho oo basiiba si ahaan mayso oo basiiba macnaheedu taqaana oo basiiba waa aftalyaani macnaha meel dunsan oo qashin guba oo isku raran ah si ahaan mayso Muqdisho meel kasta oo dhul banaan ah wala dhisaya ganacsatana ka iibinaya cidii waraaqa haysata buu yiri waraaqo waxa weeyaan Cabdalla Shideeye ahayn waxay geysanaysaa buu yiri maxkamadaha dadkii waraaqaha haystay ee waxa weeye cadeymaha haystay ee super logooyinka haystay ee xujada cad haystay ayaa la yiri ma shaqaynayso
siyaad barra dhulkan waxa weeye waraaqdu hadday ku qoran tahay ba dawladda dhexe ee waxa weeye siyaad barra hadday warqadu ka soo baxday eegay waxa weeye ma shaqaynayso horaa taa loogu kala baxay munaafiq wallaahi markaa idin leeyahay xasan waa munaafiq been baad iga muudaysaan waa maalin jimco ah lookaalkii wuxuu taagan yahay madaxtooyada dad baa hor fadhiya imaamkii masaajidku waa fadhiya dad buu wuxuu ku banaysanayaa dhiigoodii dhaxalkoodii dhulkoodii dheecaankoodii wixii ilaahay mulki siiyey oo gacantooda u geliyey ayuu rabaa inuu gacantooda kala baxo muqdisho oo basiibo ma ahaanayso dhulku waa la dhisaa minaa waraaq haysatana maxkamadaha tegey maxkamaddu soo kuwii dadka ka soo eriday maha wuxuu yidhi maalintii darayd iyo xisaab way dambaysaa maalintii darayd iyo xisaabi way dambaysaa qalinki iyo dawaaduna waa ku dul joogaan qofku markuu aakhira xasuusan yahay waa 80 jir xasan sheekh 80 jir ilib iyo gows iyo cimri uu ku cuno hantidu maanta urursanayo ma haysto baladeegay gowsa ma leh maanta nin dhalinyaro ah oo tumasho iyo dhaqlayn iyo guur iyo cayaar ku jira ma aha waa tira 80aad buu ku jira waa qorax asar joogta wadka waa loo sameeyay laakiin cimri uma dhinna intii ummadda nabi maxamed cimrigoodii waxba u dheer baladeegay wali xaraan busiir ahayd inay maanta xamar u muuqato maaha nimankan mucaaradka Sheekh Shariif iyo Xasan Cali Khayriyo qoryaha dhiga ariga niman hawiyaatiin igarteediyaatiin hubka dhiga meesha farmaajo ma joogo nin mareexaan ma joogo nin daaroodii ma joogo bulay yeeshad raggu haday rag halkaas walaalaya hadaad ragga diiday waxaad cunayso inay kula cunaan adar dhunta la isku dhufanaya hawiye sama shaqaynayn mudloodi sama shaqaynayn abgaali sama shaqaynayn kuwii shalay farmaajo kula bireynaya kula gowracayo kursiga ku soo saaray Sowdani Axmed Madoobe ma hayn soo nima daarooda ma hayn farmaajo soo nin daarooda ma hayn shalay maxay farmaajo ku dileen dani iyo waxa iyo Axmed Madoobe waxay ku dilayeen wax aan anagu cunno adigu cuni meeshii dal iyo dal baa dhisaysa waxa ma shaqaynayaan farmaajo maxaa dani ka dhaxay Axmed Madoobe iyo farmaajo macolaad sokeeye ka dhaxaysay madhiig baa ka dhaxayay maya farmaajo wuxuu lahaa anigu dalkan cuni maayo dadkan hantidooda u badbaadinaya waraanu magac iyo mansab iyo sharaf iyo karaaman rabaa war ummadda Soomaaliyeed inay sharaf ku noolaato baan rabaa dani Axmed Madoobe waxay lahaayeen adeer aan taqsiinno waa diiday isagina waa la diiday maanta markaad leedahay marka xasan munaafiqow marka leedahay xasan cali khayro hawiya tahay ina abshukuro hawiya tahay hiraabaan isla nahay kiraaba isla nahay markaad leedahay Sheekh Shariif leedahay abgaalaatay boqortooyaha hawiyaan dhisa ariga ninka laga qabto war shalay nimankii farmaajo kula gowracay soo niman ilmaadeertiisa ma hayn war siyaasadu tol ma taqaan oo inaadeer ma taqaan oo saaxiib ma taqaan oo walaal ma taqaan siyaasadda xun dan joogta ah bay leedahay siyaasadda xun iyo tol ma taqaan oo inaadeer ma taqaan oo saaxiib ma taqaan oo walaal ma taqaan waa maxay la barooranaysaa sidii shalay yeeso u ekaan muqdisho qorigii shalay yaan la qaadan ariya yaan la qaadan kuwii shalay waxa weeye aad ku xamaalaneysay ee aad kicinaysay ee mustaqbalka seejisay ee waxa weeye habar gidid iyo mursada lahaaba maanta dhulkoodii boobaysa ra'iisul wasaarihi dhamaaye habar gidir u soo baxay rooble baad kaar gelisay nimankii mursada shalay waxa weeye Allah farmaajo igala soo saara baad maanta waxa weeye dhulkoodii ku haysataa markaas waxa leedahay kaar hawiisana ma xaqonaya waxa aduunka laga tagay sax kuwii shalay kula gowracay niman daarooda bay ahaayeen yaan baroorta iyo cabaadku ka dhamaan wallahi meesha uu taagan yahay masaajid ba ku magacaabanta anu local baan waqaana meel yar local oo madaxtooyada ku dhaxtaal weey laakiin isaga masaajid bay meeshan u tahay masaajid ahaan buu u yeesanaya xasan munaafiq waa ninka qura ee munaafaqadiisu gaarsiisan tahay masjid ilaahay bayt ilaahay dhexdiisa inuu been ka sheego qabiyaalad ku falanqeeyo darad wuxuu ka lahaa localka masaajidka dhexdiisa wuxuu ka lahaa goorma laga tagay warka qabiyaalad iyo qarannimadu labay kala tahay ma kala aha qabiilku waa muhiim waa loo baahan yahay waa leefleefay shalay maantana wuxuu leeyahay kaarka hawiyisan gaabaan xoqanaya dadka xoolahoodina waa cunaya isaga isu fadwoonaya waxa kale oo inta sii dheer oo rawaayana idinku daro ninkii Axmed Madoobe ahaa oo wajh kale la soo baxay ruuxu la dheereysana sawirka arkaysa Axmed Madoobe odayga Xasan ha waa boodi
xasan waxaa loo sheegay kismaayo hadduu tago in la dilayo waa baaqday safarkii kismaayo waa baaqday safarkii jubbaland lagu tagi lahaa xasan ku tagi lahaa waa baaqday warkaa iga hooya xasan waxaa la yidhi haddaad tagtid meesha waa lagu dilayaa sababtoo diyaaradihii iyo ciidankii uu ka dejin lahaa oo nabad sugidda iyo military isugu jiray xasan isku ilaalin lahaa axmed madoobe waa diiday keligaa baa ka soo degaya buu yidhi meeshan anigaa madaxweyne ka ah anaa maamulkan iska leh anaa atooro ka ah ilaahay ka sokow keligaa adigoo ah baa soo degaysaa xasan markuu dib ugu noqday la taliyayaashii waxaa la yidhi laqad maat kismaayo haddaa ka degtid laqad maat waa lagu cunaya safarkii saasuu ku baaqday axmed madoobe oo weji kale la soo baxay labis kale la soo baxay qof kale noqdayna waa kan ninkaas axmed madoobe ama isleedahay ruuxi taxaasana maalinba kalar buu isu yeelaa maanta khamiiska cad isagoo dhan waa wadcadii sawirkaasuu u diray xasan fadal biyo xasan keliga adigoo imow xasan wuxuu yidhi deef waa booday safarkii waa ka baaqday qodobkeena saddexaad qoladii mucaaradka ahaa oo shir qabsaday iyaguna waxay yidhahdeen waxaan badbaadinaynaa dalka iyo dadka iyo diinta baanu xasan ka badbaadinaynaa golaha samata bixinta ilaalinta nabadaynta badbaadinta dalka iyo dadka iyo ummadda soomaaliyeed iyo diintooda yaa wey mataqaanaa waa deni axmed madoobe waa sheekh shariif waa ninkii loola jeeday khayre baladeegay baa isugu yimi nairobi baa lagu shiray waxaa la yidhi axmedow isma dhaqaaji kartid golahaad ka mid taha axmedna wuxuu yidhi samcan wadaacan ninkan qorra casar joogto weeye gabalkiisu waa dhacay waxba faraha kuma hayo wayse soo dhiibay aynu ka faa'iidaysano waxa weeye jilbaha inu aasu waayahay baa la yidhi golihii baa hadda israacan waxaa leeyahay garow waa soo duulaynaa garow waa shir lagu qabanaya ama kismaayo waa dal iyo dad baaba'ay ilaahay mooyaane cid u maqan allah u naxariistay wuxuu yidhi cidina uma maqna ceello uma qodna cidina uma maqna ceello uma qodna waa tabtii wuxuu yidhi awr wada sharaabti iyo shamballaa dadkii helay xuma shiiqsataa timi awr wada sharaabti iyo shamballaa dadkii helay xuma shiiqsataa timi tuub ilaahay ka furatay oo waxa weeye imaaraad iyo etoobiyaan iyo kenyaati iyo bakti iyo ba iyo hoog waxa weeye u wada shaqeeya oo wada awr kiraalyaala oo hoos nigar ah baa dalka soomaaliya haysta waa kuwii shalay farmaajo iyo dowladnimada la dagaalamayay maantana geed dheer iyo geed gaama waxay u saaran yihiin ummadda soomaaliyeed inay sida ahaato waxaan la yaabana dadka soomaaliyeed goortay tashanayaan goorta damiirkiinu shaqaynayo goorta aad fahmaysaan xasan munaafiq intuu masaajid ilaahay meel ku magacaaban intuu dhex istaagay uu dadka dhiigoodii iyo cirdigoodii iyo dhulkoodii ku banaysanayo inaguna aan u qoslayno uu leeyahay igaarkiini waaye ariga hawiyo hubka dhiga dowladaan dhisaa maanta durbaan hawiyisana buu garaacayaa haddii hawiyism shaqaynayo daaroodismna waa shaqayn lahaa farmaajo ummadda soomaaliyeed wada rabta baa deni iyo axmed madoobe gowraceen maanta xasan cali khayriye sheekh shariif wallahi baanay bun kaaga dhimayn bun aamin ama ha aaminin laakiin waxaan idin hayaa isku soo wada duubo wuxuu yidhi xaggu gabi guntu walac dhan kasta inagu waa u dhimanaynaa kuwanina waa tuugo kanna waa tuug kale ee adiga maxaa kuu dana ummad yahay soomaaliyeed maxaa idiin dana goormaad dhiig iyo damiir iyo dadnimo iyo gobonnimo aad yeelan doontaan su-aasha meesha taalla waa intaa warsan iyo nabaadiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu